gudoomiyaha degmada Salaxley iyo mas'uuliyiin kale oo la socotay gudoomiyaha ayaa soo maray deegaamo hoos yimaada Salaxley waxaanay u kurgalayeen sida koronkortu ay u saameysay deegaamada hoos yimaada Salaxley waxaana kamid ahaa deegaamadaasi geyrka Baliciise Qolcaday Dhimbriyaale mas'uuliyiinta gudoomiyaha ku helinaya socdaalka ayaa waxa kamid ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Salaxley Maxamed Caysane Ismaaciil Aadan Caraale oo kamid ah mas'uuliyiinta degmada Salaxley bulshada ku dhaqan degmooyinka hoos yimaada degmada Salaxley ayaa gudoomiyaha uga warbixiyay sida uu saameeyay ayaxu wasaaradda beeraha ee Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay si dhaqso noola soo gaaraan si aanu khasaaruhu inta uga sii badanin waxaan lagula dagaalami lahaa haday sun tahay lagu boofiyo iyo haday tahay gaadiid iyo haday tahay haamo wax kasto laga hortay kara waan uga baahanay dhammaan dalagyadii la beeray uu baabi baalkan ayaxa la yiraahdaa imaka wuxuu la joogay muddo 7 ah waxaana ka tagay eelkan bahal horona maray oo ilaa bishii afraad biladkeedaha marka imaka nagu dhashay daaqii ay xoolo cunayeen iyo sarci aanu beernay labadaba uu cunaya alxamdulillah waxaan ku mahadnaqnaa gudoomiyaha Salaxley oo maanta noo yimid qolada wasaaradda beeraha waxaan ka codsanaa in naga soo gaadho baalkan gudoomiye ku-xigeenka degmada Salaxley Maxamed Caysane ayaa halkaasi ka hadlay waxaanu yiri markaas waxaan ka codsanaa maanta wasaaradda beeraha iyo xukuumadda Soomaaliland in ay si dhaqso ah waddaasi u aafiyad ayaxaas ay degdeg wax la soo gaaraan wixii buufinaha iyo wixii degdeg ah hataa si dhaqso wax looga qabanina hawshaas arigaas uu sii kordhaya wax ka qabadkiisu uu raagaya marka imika markaan aragno waxaan u baahanahay in si degdeg wax looga qabto gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Xuseen Yuusuf Shiine waxa uu sheegay in markii labaad ay qayladaan dirayaan waxaanu sheegay in wasaaradda beeraha Soomaaliland lagu wareejiyay agabkii lagu buufin lahaa koronkorta balse waxa uu sheegay inaanay jirin wasaaradda beeruhu wax tallaabo ah oo ay ka qaaday koronkortaasi gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Xuseen Yuusuf Shiine waxa uu sheegay inay ka degmahaan ay diyaar u yihiin wixii looga baahdo waxaana kamid ahaa hadaladii gudoomiyaha waxaanu baaq degdeg u direynaa wasaaradda beeraha iyo hay'adaha kale ee dawladda waxaan rajaynaynaa insha Allah bismillaah kariim sida ugu dhaqsaha badan leh maadaama lagu wareejiyay gaadiid iyo haamihii iyo dawadii iyo wax walba ay maxaan ku raday wasaaradda yaalaan waxaan arkaynaa TV-ga maalinta 10 baa lagu wareejinayay dawadii baa saaran qalabkii shaqaaliba loo tababaray waxaanu kala qayb qaadanaa xataa maxaan ku raday shaqaalahaas dadkaas shaqaynaya hadii ay maxaan ku raday ku adag tahay inay soo baxaan aanu shaqaalaha dawladda wasaaradda badan waxaan ku dhaliilayn badan shaqaale dawladeed oo doonaya maalin kasta oo la baxaya in hay'ad looga soo qoro $10 beernimo ama $20 beernimo oo ilaa uu $20 hela aan baxaynin waa mushkilad moogti wasaaradaha shaqaalahoodu mushahar bay qaataan payroll kii ku jiraan itaalka dhaqaalaheena ayuu mushaharkooduna ku xiran yahay waxa waajib ku ah marka qayladaan meel ka timaado inaan hay'ad loo qorin proposal beernim laga doonin ay baxaan taga shaqada marka waxaan ka codsanaa insha Allah bismillaah kariim warbalana ka baxtay kala qayb gali doonee degdeg insha Allah bismillaah kariim aan ugu timaadana gaadiidka gaashaaman iyo daawadii soo qaadaan oo inta uu fadhiyo bahalkaniya uu yar yahay aynu wax ka qabanno insha Allah bismillaah kariim waxay muuqataa hadii waqtigu inta uu sii dhaafo in waxba ka qaban karinin gebi ahaan waddanka uu baabiinayo daaqii iyo beerihiiba hase ahaatee wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa ilaa hadda aan tallaabo qaadin waa Maxamed Xuseen Ibraahim Zamni TV Salaxley.